Yeah, yeah, yeah. Sarayga Studio. anigu mar walba mabaadi'daydu maaha wax kala noqnoqonaya waxna waa wixii mar walba suurtagal ah xaajaba waxaa loo godlaasay u gaar tahay waxbaa jira mar walba aan suurtagal ku ahayn aniga aaminsanaanta gooni isu taaggu waxay ka soo jeedaa May 1991 laanta afka Soomaaliga idaacada BBC-da hadii maanta arkaydkeeda la tago waxa laga soo saarayaa May dabayaaqadeedii barnaamijkii maxay kula tahay aniga oo kaga hadlaya sida aan u arko dhawaqii burca ka soo baxay 18 May 19 oo aan ku diidanahay ku diidakaynayo oo aan leeyahay laba qodobba waa khalad oo mare SRM dastuurkeedu ma ogolayn in wadanka la kala jaro qodobka lixaad baa qirayay ka oo xaqiijinayo maanta la haya dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed waxa uu wadanka ka dulqaadaya nimadii taliska Maxamed Siyaad Barre waxaanu ilaalinayaa midnimada Soomaaliyeed marka maalinta waxaan lahaa SRM khaayinimay samaysay oo anaa kamid ahaa SRM oo wayna khiyaamaysay oo qodobka meel lagu nasakhay oo lagaga noqday maanu arag dad baa u dhintay dad baa gobolada koonfureed ka dagaalamayay Bakool iyo Gedo oo SRM ta ahaa qaar baa bartamaha ka dagaalanaya rag waaweyn oo saraakiilihii ku dhinteen oo Cabdulqaadir Koosaar kamid ahaa meesha la yiraahdo mustaxiil dadkii waxa uu halgamayay markii Hargeysa la isku shubay in la iyo burco waan gooynaynaa anigu khiyaamaan u arkay laakiin haddana waxaan dhinaca kale ka dareemayay duruufihii dhinaca kale ka dhacay xamar ka dhacay manifesto lahaa si burburka iyo baabaa lahaa qodobka labaadan deedafaynayna wuxuu ahaa ku diidinaa gooni istaaga haddii reer waqooyigu ama beesha isaaq ay ka cabanayso maxay ahayd xamar baana lagu dulmiyay oo waxna lagu yeelay yaa damaana qaad u noqonaya kuwa maanta burco dhawaqan ka sameeyay inaanay Hargeysa burco birita cadaalad darra ka sameeyay oo dulmi ka sameeyay sida imika badhacday ay ka sameeyeen ee soo noqnoqotay marka anigu mabaadiidan waqtigeedan la sugayay laakiin mar walba qoraaladayda laga arkaa buugaagteeda laga arkaa buugaagtan qoriba laga arkaa buuga xaajadana qalooc baa la akhriyi karaa jahadraawi baa la akhriyi karaa guri waa haween baa la akhriyi karaa afka hooyo waa hodan baa la akhriyi karaa mabaadiidaydu buugaagteeday la socdaan laakiin momentum baa hadda soo baxay dawladdii Soomaaliya waxa la siiyay i'tiraaf caalami ah hadda yalsanina reer Soomaaliland ayaanay dhayalsan waa awood soo socoto beesha caalamku dabada ka wado oo ay waliba ku sanduleynayso Soomaaliland in la midoobo oo madaxdeeda lagu sanduleynaya madaxdeedu ku dhacbay la yihiin dhiirashay la yihiin laakiin iyaga qudhoodu way arkaan in arinta meesha taala shacabkay ka baqayaan shalay markii burca lagu gooynayna shacabka laga baqay Cabdiraxmaan Ilaahay ha u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ahaa gudoomiyihii SNM marka dhulka la qabtay 18 May uu diiday inuu saxeexo uu ka horiyay laba nin oo qura ayaa abaabulka lahaa nin bariga burco ka yimi oo leeyahay Axmed Maxamed Halac uu geeriyooday Allah yarxama iyo nin ka yimi Gabiley oo magaciisa leeyahay Yaxya Sheekh Ibraahim ayaa midna xagga abaabul qiiraca ka soo sameeyay hayay tolaayaya midna dhinaca burco ka soo sameeyay dadna Hargeysa la soo galeen ciidamadii bay saameyn ku yeesheen Xasan Ciise oo gudoomiye ku-xigeenkii bay ula yimaadeen Xasan Ciise ka hadlaya afkiisa oo aanu haynaa oo aanu idin soo bandhigi karaa oo le markii hore waan ka diiday wax ku arintani socon mayso laakiin markii dambe ay abaabul weyn galeen ay askartii ka haysteen waa kuwa maanta talada haya ay oogtii weyneeyeen caadifadii cirka qabatay ayuu Cabdiraxmaan u tago markaas uu sidana la wadaa oo burca laga dooraya Cabdiraxmaan wuxuu anigu burca iman maayo arrintaana lama socdo markii dambe burco maalintii ugu dambeysay buu yimi erey buu yiro duuban oo ku jira maxay ahayd YouTube-ka maanta ku jira oo aad ka soo heli kartaan Cabdiraxmaan wuxuu yiri saddex sano soo socda ayaynu isweydiin doonaa arrinta inuu maanta halka ku hayno fadlan shargaray hadda shargaraysaan birita 10 fi amad yeelisaan hadda shargaray hadii kale anaga la taga wax anaga inoo sheegay hadda shargaray kulligii shargaray hadda dilay fidmay shargaray kulligii all of you now kullu fa badan arafkay aan xiranayaan una dilay fid waxaan isbees soo dhooban ilaa waa been إلا صاحب بنقولنا هي بن ورا شرقرة يلا شرقرة